السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكوج مهد أدبان دين سلام يا ملكستا أو العالم كجوكتين. مقال كان عاوي عن دوبيو وكدوين هاي مقالة دهران سودو بيشري إن شاء الله. وانا مقال حقيقة عن شعرها هاي إن مركا ضد بدن أو جارو إن شاء الله جارسيو. مركا يدين كانوا حنا كعد سنة يا دعوة مقالك haddii aad u aragto inuu muhiim yahay message-kan aan dirayno insha allah sii gudbi oo waxaan idinka codsanayaa inaad markaas ku share garaysiin meelaha dhalinyaradu ku badan tahay guruubyada si ay markaas u gaarto fariintanu dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed insha allah bidnillaahi alkariim. waxaan u mahad celinayaa allah subxaanahu wa tacaala marka koowaad allahaasoo aniga i abuuray iga dhigay qof islaam ah laa ilaaha ila allahu muxammadun rasuulullah ilaahaas maahana ilaah kale ma jiro oo xaq lagu caabudo nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam waa rasuulkeennii maxamed calayhi salaatu wasalaam ee naloo soo diray diintana na soo gaarsiiyey. intaa markii laga soo tago waxaa aad u soo badanaya ayaamahan dambe dhalinyaro badan oo walaalayaal diinta ka baxaya ayaa aad u soo badanaya. dhalinyaradaas waxay ka baxayaan diinta ayagoo sheegaya markaas inay qaateen markaas ay diinta islaamka ka baxeen. haddaba maxaa sababaya? dhowr arrimood ayaan isleeyahay sabab ayay u tahay inay dhalinyaradaasu macnaha hararadaas ka soo yeeraan ama ay dhahaan diintan ka baxno. marka koowaad in ay dad jiraan caannimo raadinaya maantay oo islaba amaad caan noqotiinoo maantay haddaad dhahdiin diintan ka baxay ama diinta islaamkan ka baxay maantay amaad sidaa caan ku noqonaysaa oo dad badan maaragtaa ay ku baranayaan oo lagu sheergaraynayaa oo dad bay ka tahay. maxaa yeele dadkii waxa weye dad badanoo waxaa jira cilmigu ku yaryahay ama diintu ku yar tahay ama waxanba macnaha wax aan macno lahaynba ay la tahay maanta islaamnimadan aan haysano iyo diintan maanta fursadan qaaliga aan dadka wada haysan. taa way noqon kartaa inay marka ay isleeyihiin amaad caan noqotiin oo waxa weeye maanta dee aad adduunka caan ka noqotiin ayagoon fiirinaynin macnaha dhibaatada ay leedahay inay maanta diinta islaamkan ka baxna ay dhahaan iyo in ay markaas dad ama ay yihiin dad diinta ku yar tahay oo ama diinta ku yar tahay ama cilmigu ku yar yahay oo waxaan si yaroo fudud iskaga samaynaya oo jaahilnimo hayso kale iyo ama inay yihiin dhalinyaro markii horeba cabursanaa oo jeclaa inay markaa diinta ka baxaan haddana helay fursad ama yimid wadamo markaas ay ku dhawaaqi karaan inay diinta ka baxaan. isku soo wada duub marka waxaasoo dhan xataa waxaa jiri kara kuwo kale oo markay wadamadan reer galbeedka soo galeen macnaha isdhahaya maantay amaad xataa deganaasho ama sharci iyo warqado iyo wax lamida aad ku heshaa maantay oo waxyaabo noocaasa adugu waxyaabo badanaa jira oo ku kalifi kara qofka. haddaba maxay tahay annaga marka maxaa waajibka naga saaran maxaan samaynaynaa annagu marka maxaan samaynaynaa haddaba marka annaga maxaa nooga aadan dhalinyaradaas? horta marka koowaad u duceeya in ilaahay mar kale soo hadeeyo diintoodana ay ku soo laabtaan ilaahayna inuu dembigooda dhaafo. haddii ilaahay hanuun la damcay intaa ugu duceeya. sababtu waxay tahay maanta waxaad aragtaan dad badan oo sanadihii lasoo dhaafay dhahaya diintan ka baxnay maaragta diintii caynaya waad aragteen. haddana ma jiraan hadda dadkaas hadda gaala maaha way soo laabteen. soomaalidu ma ahan ama kuma badna dad inta diinta ka baxa ee ku nagaa kara gaalnimo ku nagaa kara way ku yar yihiin. waxyaabo badanaana markaa dadkii maaragta ku qasbaya. laakiin kadib qofka Soomaaliga ah markii uu xasuusto diintii uu ku dhashay iyo waalidiintiisii iyo macaankeedii iyo maaragta janno adduun qofka diinta islaamka qofka haysta janno adduun ku jira markuu waxaa xasuusto qofku soo noqonaya xaqiiqatan. mid kale wuxuu arkayaa de meeshan kale uu aaday inaan waxba jirin. marka u duceeya
inuu ilaahay bal maaragta diintiisa mar labaad qofkan ku soo celiyo insha allah biidnillahi. okay, qodobka labaad, ha faafina ama hana sheergaraynina dadka noocaasa markaad aragtiin. macnaha ma ahan sababtoo waa waxuu isagu rabayba, marka ha u sheergaraynin, comity ha ku qorinina qaldan, ha sii faafinina muuqaaladiisa, ha sheergaraynina, halkaas uga hara. 3, ha habaarinina, waxba ha habaarin oo qofkan Soomaaliga ah arrimahaas aan idiin soo sheegay ayaa laga yaabaa inay ku kallifayaan oo ay u badan tahay weliba diin la'aanta ama aqoon la'aantu. ha habaarin marka, cadaabtii allaha kugu fogeeyo, inkaar allaha kugu rido, jahannamo, waxa ha dhihin, ha habaarin qofkan. waxaa laga yaabaaba adigan habaaraya inuu inta qofkaasu soo laabto ilaahay u toobad keeno. adigan habaaraya maanta waxaaba laga yaabaaba inuu markaas kaa qayr badan yahay ama ilaahay kaaga dhowaado. adiga laftirkaagu isma ogid, qof macnaha garanti haystaa ma jiro. marka qofka walaalkaa ah waxba ha habaarin, maaragta nacayb badan ha tusin, ilaahay subxaana wa tacaala u bari, u ducee, soo dhowee. hana meel publicana, komitiyada publicana ka joojiya dadka noocaasood ku caynaysiin ama ku habaaraysiin ama ku aflagaadaynaysiin. wuxuu kasii qaadayaa walwal, waxaa kusii dhacaya dagaal buu usii qaadayaa. laakiin haddii laga aamuso qofkaas oo loo kaadiyo, waxa laga yaabaa meelba ma jirinba, marka horeba meel ma jirin ama ma fogeyn. marka dadka noocaasa yaan markaas waxa weeye la habaarin. ilaahay subxaana wa tacaala asagaa markaas qafuuru raxiim ah. haddii ilaahay hanuun la damcay way mar kale soo laaba doonaan, waana walaalaheen oo waa dhalinyaro Soomaaliyeed, rag iyo dumar way iskugu jiraan. way jiraan kuwo badan oo ka baxay oo haddana kusoo laabtay dhammaantood oo maanta maaragta dad muslimiina ah. waxa weye waxyaabo badanna og maantay oo dee arkay markay diintii ka baxeen waxa ay la kulmeen iyo siday maaragta meelaha ay tageen, kadibna markay soo laabteen ama markoodii horeba dee ku jiray markaa janno adduun. haddaadan marka intaas samay karin, haddaadan u ducay karin, marka haddaadan hadal fiican ku oro karin, haddaadan maaragta waxyaabahaasoo dhan haddaadan samayn karin, ka yara gaabso, ka aamus oo ka gaabso, waxba ha ku darsanin. maxaa yeele waxaan aad wadwadiin ama aad sheedgaraynaysiin qofku waa waxa uu doonayo. shaydaankuna markaas uu jecel yahay in waxa lasii faafiyo, xumaanta lasii buunbuuniyo. marka khayrka un sheergareeya, laakiin xumaanta lama faafiyo. xumaanta ha faafinina. idinkaysan idin wanaagsanayn inaad maaragta qof Soomaaliya oo maanta dhahaya waan gaaloobay ama gabar Soomaaliyeed inaad sii faafidiin, inaad u geysiin habaryarteed ama eedadeed muuqaalkeeda, gabadheedii oo maaragta dhahaysa gaal baan ahay, meeshaas ku qaraacanto, dhiigkar ku dhaco, sokorti. macnaha ma wanaagsanaba. marka laga soo tagaba xataa sida kale in loo faafiyo waxyaabaha noocaas ha faafinina walaalayaal insha allah. waxaan rabaa marka inaan ku gunaanado qofka walaalkaa markaad u nasteexaynayso, sida waxyaabaha sida inta badan aan aragnay looguma nasteexeeyo. qofkii waxaad rabtaa inaad wax u sheegto, haddana waad caynaysaa, waad habaaraysaa, waxyaaba qoraysaa. marka adigii unbaaba dembigii qofka ka daldalayaba oo ka qaadaya. ma rabtaa qofkan inaad u nasteexayso, luuqiisa u gal. luuqiisa markaad u gasho, meeshan uu ka isticmaalayo baraha bulshada, waxaad u qortaa hadal nasteexa ah, waxaad u raacisaa maaragta soo dhaweey qofka, waxyaabo badan oo maaragta aad ku soo jiida karto u samee. laba maado ay mid tahay inuu ku yidhaa walaal waan yeelay, waan kaa aqbalay, ama inuu markaa kaa aamuso uso waxba kugu darsan. uma malaynayo marka qof aad hadal wanaagsan ku tiri oo luuqiisa ugu qortay keligiis adigii ilaahay iyo asaga inaad wax xun kala kulmayso, ma aaminsani. laakiin waxaan u badannahay inaan markaas qofka meel publica aan waxyaabo xun kula hadalno. qofku wuu iska kaa dhicinayaa, waad soo caynaysaa, waad soo aflagaadaynaysaa, adiguna waxaad isku haysataa qof wax sahaya. ilaahay ka cabso ayaad leedahay, war sida macnaha erayo badan aad adeegsanaysaa. laakiin taas qofku walaal kuma maaragta waana kuma qaadanaya, waanana ma noqoto. haddaad qofka u nasteexaynaysiin
meelaha aad ka heli kartiin oo asaga si qaasa maxaa yeelay haddii wax alla dartii kaa yihiin wey marka saasaan insha allah idinka codsanayaa fideogana waxaan leeyahay dhalinyarada insha allah qof kastoo daawada ha gudbiyo waxaa laga yaabaa inuu wax ka fahmo laga yaabo walaalkiisa inta ku arkay inuu wuxuu qori lahaa uu ka joojiyo laga yaabo inuu maaragta asagoo qoraal xun qori raba inuu mid positive qofkii ugu qoro oo uu maanta uu maaragta qoraalkaas positive ka hadallada positive ka ama qoraalada wanaagsan ma malay kartiin inta qof noloshooda aad ku bedeli kartiin dhan walba ha noqoto hadal wanaagsan maanta haddaad qorto ajirna wuu kuu socdaa qofkiina waxa weeye saameynaad ku yeelanaysaa adigiina maaragta waad shaqaysatay oo wax fiican aad shaqaysatay laakiin maanta haddaad maanta dhan xumaan qorayso ama aad hadallo qaldan qorayso ama aad cay qorayso ama aad aflagaado qorayso waxba adigiina waad isxijisay walaalihii kalena maaragta xumaantaadaad kusii dhex faafisay asagiina waad sii fogaysay qofkii walaalaha waxaan maanta mawduucan usoo qaataa waxay tahay waxaan arkay dhalinyaro badan oo social media waayahan wax iskaga soo qoraya anu diintii waan ka baxay anigu sidan yeelay okay haddaad walaalayaal aragtiin intii muuqaalkaygu soo gaaro haddaad dadka noocaas aragtiin arrimahan aan idiin soo sheegay insha yeela haddaadnan awoodina ka gaabsada oo ka aamusa midda ugu muhiimsan waxay tahay oon idinka codsanaya waxay tahay walaalayaal ha faafinina qofkan waxaan uu samaynayo hadduu facebook ku soo share gareeyo like-na ha u saarin waxba ha u saarin halkaa uga har hana u share garaynin qof kalena maaragta ha ku taagaraynin okay intaasaan maanta jeclaystay aan idinla wadaago qof kasta oo muuqaalkan soo gaarana waxaan rajaynayaa insha allah in uu usii gudbiyo walaalihiis kale maxaa yeelay muuqaalo badan oo awal waxaan soo duubi jiray oo macnaha nutritionka iyo waxyaabaha ku saabsan iyo miisaan dhimista iyo miisaan kordhinta iyo nutritionka waxyaabaha laakiin mawduucan kan waa ka duwan yahay sidaa darteed ayaan inkaga codsanayaa marka inaad meel kasta oo group kasta oo qof Soomaaliya ku jiro dhalinyarada ku jiraan aad ku share garaysiin insha Allah biidnillaahi kariim khayr badan idin dhaafaya insha Allah dadka walaalaha ee dhalinyarada waayahan dambe waxyaabaha ku soo badanayaana insha Allah iyagana waan u ducaynaynaa haddii alle hanuun la damcay ilaahu soo hanuuni haddii aan ilaahay hanuun la damcin oo ilaahay gaalnimo u qorana ilaahay shartooda hana mootiyo iyo dhibaatadooda annagana ilaahay nama fidneeyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qaatumada khayr ha noogu qatimo insha Allah marka aad baan idiin salaamayaa asalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.